madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ugu maqnaa dalka Itoobiya caasimadiisa Addis Ababa ayaa intii aanu ka soo dhoofin wadankaasi waxa uu kulan kula qaatay hoteelka uu ka deganaa Addis Ababa orodyaanka caanka ee u dhashay Soomaaliland una ordo wadanka Britain adduunyadana looga yaqaano Mo Farah kulankaasi ay wada yeesheen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo Mo Farah waxa ay ka wada hadleen sidii dhalinyarada Soomaaliland loogu dhiirigelin lahaa arrimaha isboortiga. Mo Farahna khibradiisa ciyaaraha uga faa'iideyn lahaa da'yarta Soomaaliland ee jecel arrimaha ciyaaraha iyo orodada. waxa kale oo xusid mudnayd in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Mo Farah ay wada sameeyaan orod walow aanay diyaar u ahayn madaxweynaha Soomaaliland iyo Mo Farah haddana waxa u suurta gashay in yar ay wada ordaan si dhalinyarada Soomaaliland loogu dhiirigeliyo ciyaaraha iyo orodada si ay uga fogaadaan balwadaha iyo arrimaha taariibka isla markaana ay ugu mashquulaan ciyaaraha yarta jecel orodaduna ay ugu daydaan Mohamed Farah isla markaana ay ka gaadhaan darajada uu ka gaadhay orodada. Mo Farah oo warbaahinta qaranka Soomaaliland ay wax ka weydiisay dareenkiisa ku aadan kulanka uu la qaatay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa uu kaga jawaabay هاتو والله مدحوينها هذا وشرف وين سان لكلمناي أردنا وكجرا أو دو وقف فتو أردية وأنا مالين أرد كانوا مالك است أردنا مالين يا سعد كذا قلت لابد سكار كذا يسدو فزود جهيد مركا واحد بانتين سان استاسقلين كده دالنا دالنا يردا ودالنا وطن كجوجنا Somaliland ملك كجوجان سيد وقصو صار لهين next Mo Farah كلمة يقول مثلا كويدينية واحد تاني ولا شيء Somaliland ونا أرد وطن كبريتان boqolaal dhalinyaro oo reer Soomaaliland ayaa ku daawanaya in maxaa taraasi lahayd والله waxaan talin lahaa oo alxamdulillah wadankeena maanta meel fiican maraya amba chance kan ka faa'iideystay adduunka ku tagay waa Europe stage jirban ku tagay marka chance kana opportunity way leedahay waana caawino gacan qabano xagga sportiga noqoto hada role model noqoto qalabkii iyo alaabtiin ku caawino ayna ay ku dadaalaan maanta qof strawberry maanta bilaabay orod barina heer ku gaadhay ma jirto aan waxaan ku bilaabay 12 jir haddana 35 jira oo maanta ma meel fiican ka maraya marka intaas sanadood waa la soo jabasay la soo kacisay marba jirtay si fiican u ordin waana ku dadaashado nin Ahmed Saki Dair Hassan iyo Ibrahim Abdiqaadir Ibrahim Eagle warbaahinta qaranka Soomaaliland caasimadda wadanka Itoobiya ee Addis Ababa.